tartamada ugu yaabka iyo waalida badan caalamka. Adduunka waxa lagu qabtaa oo lagu dhigaa tartamo kala duwan, kuwaas oo mararka qaar gaadhaya ilaa xad waali ah. Maantana waxaan idiin soo ururinay koox tartamo ah oo la odhan karo waa kuwa ugu yaabka badan caalamka ee sii daawo barnaamijka oo dhammaystiran. Tartanka fuulidda jaranjaro ka samaysan baraf. caadi ahaan fuulidda jaranjarooyinku ma aha wax adag, laakiin marka ay jaranjaradu tahay mid ka samaysan baraf, dhab ahaantii arrinku uu ka adkaanaya sidii hore. Arrinkaasina waa waxa ku dhaca tartamayaasha ka qayb gala tartankan. Waxay ku korayaan jaranjarada qaab adag oo aad moodayso inay hadda baranayaan socodka, waxayna ugu soo dhacayaan si isdaba jooga dhulka, iyagoo waayay dhammaan dadaalkoodii ay ku bixiyeen sidii ay u fuuli lahaayeen jaranjaradan. Tartanka xalwadda. tartankani wuxuu ka mid yahay tartamada ugu caansan ee lagu qabto waddanka Japan, waxaana ku waajiba qofka tartamaha inuu ku qaniino afkiisa shay walba oo yaala meesha ilaa uu kala garanayo in shayga uu qaniinay uu yahay xalwo ama uusan ahayn. Waxayna sameynayaan dadka tartankan qabanaya xalwad ay u eekaysiiyeen qaabab kala duwan, sida kaba loo eekaysiiyey xalwad iyo handaraabka laga furo albaabka oo loo eekaysiiyey qaabkeega ama xalwada. haddii uu qofku qaniino shaygaasina uu noqdo xalwad, qofkaas ayaa noqonaya qofka ku guuleysanaya tartankan. tartanka bridge-ka gariiraya. waxa tartankan lagu qabtaa waddanka China, waxaana ku waajiba tartamayaashu inay isu qaybiyaan laba kooxood. koox kastaana waxay isku dayaysaa inay ka riddo kooxda kale bridge-ka. waxa lagu dul qabtaa tartankan bridge soo laalaado oo ka samaysan geedka loo yaqaano bambuuga ama khaysaraanka, hoostiisana ay tahay barkada ay ku jiraan biyo. waxaana adag inuu ku sii nagaado qofku bridge-kan marka loo eego gariirkiisa iyo dhaqdhaqaaqiisa oo aad u xooggan. tartankani wuxuu ku leeyahay shacbiyad badan waddanka China, waxaana isugu yimaada sanadkii 10 qof si ay u daawadaan tartankan. tartanka gorayada. waxaan hore u aragnay tartanka fardaha, laakiin weligaa ma maqashay tartanka gorayada. gorayadu waxay awood u leedahay inay ordo oo jarto masaafo aad u dheer, laakiin dhibta kaliya ay wajahayaan dadka ka qayb gala tartankan ayaa waxay tahay inaanu ku dul sugnaan karin qofku dhabarka gorayada. degdeg ay ku socoto gorayadu iyo dhabarkeeda oo aan ahayn mid lagu dul fadhiyi karo ayaa ka dhigaysa qofka dusheeda saaran inuu ka soo dhaco, laakiin tababarada isdaba joogga ayaa ugu dambeyntii ka dhigtay inay samayn karaan tartankan. kubadda baaskiilka. tartankani ma aha hal ciyaar oo kaliya, laakiin wuxuu koobsanayaa 2 ciyaarood oo kala ah ciyaarta baaskiilka iyo ciyaarta kubadda cagta. dadka ciyaaraya waxa ka mamnuuca inay lugahooda u adeegsadaan kubadda amaba ay ku laadaan, laakiin waxay adeegsanayaan taayirada baaskiilka ay saaran yihiin. waxa la aasaasay ciyaartan dhammaadkii qarnigii 19aad, waxaana sameeyey ninkii caanka ku ahaa baaskiil korista ee lagu magacaabi jiray Nicholas Codman. iminkana waxa laga ciyaaraa ciyaartan oo ay caan ka tahay wadamada Faransiiska, Jarmalka, Ruushka iyo Japan. ciyaartani siday u muuqato maaha mid fudud, waxayna u baahan tahay in qofka ciyaaraya uu awood u leeyahay inuu isku miisaamo baaskiilka uu saaran yahay iyo kubadda uu ciyaarayo. tartanka oohinta carruurta. dhab ahaantii badankeenu ma jeclin marka ay ooyayaan carruurta yaryari, wuxuuna kaa dhigayaa arrinkan inaad u naxdo oo aad u werwerto ilmaha yar. laakiin waddanka Japan arrinkan waxaa loo yaqaanaa arrin wanaagsan, waxaana lagu cabbiraa caafimaadka ilmaha yar. mar kasta oo ilmaha yari oohinta sii badiyana waxay macnaheedu tahay in ilmaha yari uu sii wanaagsanaanayo waddanka Japan gudihiisa. sidaa darteed waxay u qabtaan tartan oohinta ilmaha yaryar, waxayna bilaabayaan aabbayaasha carruurtan dhalay tartankan gudihiisa inay ka cabsiiyaan oo ka bajiyaan carruurta yaryar, iyagoo adeegsanaya qaabab kala duwan oo ay ka mid yihiin in lagaga qayliyo wejiga ilmaha yar iyo in la xidho wejiyo laga cabsanayo. ilmaha yar ee ugu oohinta bata ayaana noqonaya ka guuleysanaya. tartanka barnaamijka WBO ee waddanka Mareykanka. tartankani wuxuu ka mid yahay tartamada yeeshay shacbiyadda aadka u badan sanadadii ugu dambeeyay, waxaana ka soo qayb gala dad ka kala yimaada wadamo badan. barnaamijkan waxaa aasaasay bilowgii shirkadda lagu magacaabo Endemol ee ku taalla waddanka Mareykanka, wuxuuna ku caan yahay tartamada aadka u adag ee ku jira gudihiisa. waxaana ku waajiba qofka tartamaha inuu ka gudbo marxalado kala duwan oo aad u adag, taasoo ku xidhan degdega iyo awoodda jireed ee qofka. halka sidoo kale ayna muhiim ahayn in tartamayaashu ay soo hagaajiyaan oo ay soo qurxiyaan jidhkooda, maxaa yeelay waxay la kulmayaan dhoobo, saabuun iyo darbado inta ay ku guda jiraan tartankan. iyadoo uu tartankan yahay mid aad u adag oo aan la jeclaysanayn, haddana waxaa jira dad badan oo daneeya oo ka soo qayb gala oo ku kala nool daafaha adduunka. intaas ayaan idiin soo gudbinay maanta daawadayaal.
haddii uu ku qanciyay muuqaalku like saar, haddii aad ku cusub tahayna channelka Ogaal Cusub subscribe saar. waad mahadsan tahay.